يا سلام ومركل يويل كيني بقر كفرحدا مانتنا واحد لبان جعفر شخصي او سامينت بدن بيروين تمرنسده هويه وانا عرض كهويه عدا اوغودي maxaad ka taqaanaa taariikhda ninkan aan kaftamin ee soo maray xeerarka kala duwan waa gacan yarihii qanyaro afrax qabqabla dagaal gudoomiye degmo ilaa ma laga gaaro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya halgankiisa intaas ayuu u dhaxeeyay wiilkan la holin waayay waxa uu leeyahay waayo iyo waliba dhigaal taariikheed oo cajiib ah warbixintan ayaan ku falanqeyn doonaa daawade balse marka ugu horeysa muuqaalka la garay oo sheer garay kuna soo biirbahdayna boqoran ee boqorka farxada iska celsha dadka waxayna ka tabad shawaa joognaa iska celsha waxayna la mid ka hayna dhulkiina booban raba waa hagaag xildhibaan maxamed abuukar jacfar waa haliyay si weyn ay u wada garanayaan bulshada Soomaaliyeed qaarkoodna ay ku xasuustaan waxyaabo badan oo ay kula kulmeen bal maanta aan si kooban ku baro taariikhda nolosha maqoslahan beelweynta murunsade xildhibaan jacfar waxa uu soo maray xeerar kala duwan qaarkoodna dhibaatooyin ay ku dugnaayeen si uu u gaaro heerka maanta iyo mansabka uu taagan yahay waxa uu soo noqday gacan yarihii qanyaro afrax kadib qabqabla dagaal oo Muqdisho kaas oo qayb ka ahaa awoodii ciidanka arrimaha beelweynta murunsade ugu dambeyn taas waxa ay sababtay inuu noqdo gudoomiye degmooyin kala duwan oo Muqdisho ku yaala ilaa ugu dambeyn uu qayb ka noqdo golaha sharci dejinta baarlamaanka Soomaaliya jacfar waa nin aan la gaban afkaartiisa siyaasadda iyo waxa uu aaminsan yahay waana nin inta badan saaxiib la ah ciidamada qaranka Soomaaliya waa milyaneer ka daajiray isbedelada dalka iyo waliba inuu xalliyo arrimo kala duwan waa mid ka mid ah hal dowladda murunsada ay ku tashadaan waa geesi aan garab ka bixin xilliyada adag ee qof kasta oo aad tahay ya salaam intaas kaliya waxa samayn kara wiil daguura ah oo u dhashay beelweynta murunsade waaw waa la kala tagay orod sama aha balse xildhibaan jacfar waa la jan socdaal oo ku leh liba hore u soco waxaan rajaynaynaa guultanka ballaaran insha Allah iyo madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliya bye bye ababay Alfred Dental Clinic Saybiano munaasabada bisha Ramadaan awgeed waxa ay ku samaysay qiimo dhimis ballaaran ku xiro ilkaaga kori hoos $20 oo kaliya waxaana ku adeegaya dhaqaatiir isugu jirta ajaanib iyo Soomaali uga hagaag xaruntooda oo ku taala inta u dhaxaysa isbitaalka Banaadir iyo Saybiano ama kala xiriir wixii faahfaahin ah nambarka shaashada kaaga muuqda balanteena waa hoyga daweynta iyo daryeelka afka Alfred Dental Clinic Saybiano